kulan oo wanaagsan akhyaaray waxaad kusoo dhawaataan sheeko yar oo ku saabsan kulan ciyaareedka dhex maraya kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo ka dhacaya gegida Etihad ee magaalada Manchester. Liverpool ayaa marti u noqon doonta kooxda City oo ciyaarihii ugu dambeeyay iyadoo aan awood xoog leh ku socon koobkii dhagaweyne ee Champions League-na laga cirib tiray. Liverpool waxay tagi doontaa gegida Etihad galabta iyadoo ka warqabta in kooxda Arsenal lagaga adkaaday ciyaartii ka dhacday gegida Emirates ay la qaadatay kooxda West Ham oo ay ku mahadinayso in guusha sali eber ah oo Jarrod Bowen uu goolka dhaliyay ay kooxda Liverpool kaga faa'iideysan karto hoggaanka horyaalka. haddii ay adkaato ciyaartan cadaadiska Arsenal waa uu ka yaraanaya oo 11 dhibcood ayay hoggaanka horyaalka ku qaban doontaa. haddaba Manchester City ma heli doonto ciyaartooydeeda kale ah Rodri iyo Manuel Akanji oo muddo dheer maqnaanaya. John Stones qudhisu qalin ayuu galayaa. sidoo kale waxaa ciyaartooyda kulankan inay seegaan laga yaabo ku jira dhinaca City ciyaaryahanka Erling Haaland ee weerarka uga ciyaara kooxda Manchester City kaasoo isna dhaawac qaba dabcan, balse isaga waxaa la leeyahay waa la qiimeyn doonaa oo inuu xataa dib u soo laabto waa suuragal. Liverpool dhinaceeda Conor Bradley ayaa ka mid ah xidigaha seegaya iyo weliba Joe Gomez oo labaduba difaaca ka ciyaara dhaawacyana qaba. ha yeeshee Liverpool waxay dib u heli kartaa ciyaaryahanka Cody Gakpo ee waddanka Netherlands kaasoo labadii kulan ee lasoo dhaafay kooxda dhaawac kaga maqnaa. tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola waxa uu sheegay in cadaadis xoog leh uu kooxda saaran yahay isla markaana hadda ay u baahan tahay inay kasoo kabato khasaarooyin kooxda isugu xigxigay oo muddooyinkii dambe dhinaca horyaalka iyo tartamada kaleba kasoo gaareeyay. Liverpool dhinaceeda waxa iyana ay dabcan lumisay labadii kulan ee lasoo dhaafay dhibco umana aanay qalmin marka loo fiiriyo in koox horyaalka hogaaminaysa ay dhibco ku lumiso ciyaaraha waqtiyadan oo kale. dhinaca kalena kooxda Chelsea kulankeedii iyana xalay waa la xasuuqay oo 2 gool iyo gool ayaa lagaga dhaliyay kulankii Villa ka dhacay. Aston Villa oo kaashanaysa ciyaartooydeeda kooxda ku cusub ee January ay la soo wareegtay ayaana ku adkaatay 2 gool iyo gool. kooxda Chelsea oo goolka ku horeysay Enzo Fernandez ayaa u dhaliyay waxaana labada gool ka daba keenay Marco Asensio oo kooxda Paris Saint-Germain ay kala soo wareegtay kooxda Aston Villa. ha yeeshee Marcus Rashford ayaa isna soo bandhigay oo bedel markii uu ku yimid labada gool ee kooxda Aston Villa ay dhalisay isagu caawiye ka ahaa. horyaalka Premier League Newcastle iyo kooxda Nottingham Forest ayaa iyana ciyaar kale oo xiiso leh wada qaadan doona. haddaba kulamadaas iyo wararka la xiriira iyo wixii kasoo kordha waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qaybaheena dambe ee followda noogu soo dhufta dabcan like-ta iyo share-tana noo sii saara waanad ku mahadsantihiin la socodkeena. waa Muuse Xoshow idinkaga tegaya nabadgelyo.